صعب وين ما وحاول الله سبحانه وتعالى وحنوبا لقاضي نصر يقول يقرقار adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiyay murtadiin baan baabiyay oo ummadii ku tumato ilaahay baa idin ku dhaariyay suura noocay bay u taala masaasa jihaada mataasa gaala la dagaalana mataasa wadan xoreyn ah mataasa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya abadan suura qabiixa gaalada kala noocyada kala duwan iyo murtadiinta noocyada kala duwan dhamaantood waxay noo yihiin hadaf mashruuca oo Allah subhanahu wa ta'ala aanu ku caabudayno ayay noo yihiin dilkooda iyo waxa ay qarxintoodu marka ha laga fogaado oo ha laga cararo leenahay maxaa samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa ta'ala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله بعد الشرك الدم بكوين مجره ربي قالنا تبارك وتعالى ميل عبد مسألة صاري قد ديقا أقو أدقى القرآن ككسو أرورين وكشيغي روح الروح مؤمن الدلو كس الدله أبا الكيس وجهنم وانا كواريا allana waa u cadhooday waana lacnaday cadaab weyn waa u diyaariyay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ruuxa muuminka diintiisa inuu waasacnimo kaga sugan yahay ka zuuli maayo intuusan dhiig xaraama gelin dhiig xaraama markuu galo diinkiisii waa cidhiidhiyamayaa waasacnimadii buu waayayaa xaalad khatara iyo ciriiri buu galayaa xagga diinta arintuna waxa weeye sida nabigu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hal ruux oo mu'min oo xaq darro lagu dilo ayaa ilaahay agtiisa kala weyn in ay adduunyadu baaba'do oo zuusho adduunyadan samaawaadkeeda iyo dhulalkeeda iyo badaheeda iyo buuraheedu inay baaba'do با إلهي كلفظت هل روح مؤمن الدلكيس محايل مؤمنك وكحق ويه إلهي أكتي سنة وككرام بدني هاي الدنيا ذا أردن حتى كعبدا سيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى كعبدا وحا كقيمة بدن روح مؤمنك ما أنت كعبدا الدميي نين كعبدا تجي أو الدميي حال كيسو إن لما فضضادين لكن نينك بقولك النفع مؤمن السمر عكت مريي وركيس وفضديه الله تبارك وتعالى نف مؤمن ذا أكتيس كما فضدا ملائكة مركو ربي كويري وحن أبوريا ملك وحن كو أبوريا الضومك كويئة وأوكل الضنبيو مامولة ابن آدم كالغها الله ياي أي ملائكة وحي لذين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربي يو dhulka ma waxaad yeelaysaa cid fasaadisa oo dhiiga daadisa malaa'iktu fiirso dunuubtii kale oo dhan mayna sheegin laakiin ibn aadam waxay ku eedaysay oo ku sheegtay dhiig buu daadin doonaaye seeba dhulka u keenaysa ma waxaasad rabbiyo dhulka keeni dhiig la daadiyo sidaas daraadeed baa maalinta qiyaamada xisaabta rabbi maxkamadda waxa ugu horeeyo oo dadka lagu kala saari doono dhiiga u horeeyo intaan fayl kale la furin oo diiwaan kale la furin oo wax kale xisaabtooda la qaadin dhiiga ugu horeeya awwal ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati ad-dimaa dhiigu ma sahlana ruuxa mu'minka ilaahay rumaysanay qalbigiisa wax yaro iimaana ku jiro ruux muslim adilkiisa hatta kaliman niskeed hatta hal xaraf kaga ma qayb qaato waa ka carara waa ka ixtiraaza waa iska ilaaliya waa iska jira waa ka dhowrsadaa
laana wax weeyaan waa meel halis ah ruux galayna kama baxo sida asarka Abdullah ibn Umar uu tilmaamayo ruux galay kama baxo kama bixi karo bal waxa dhacaysa marka aad dhiig daadiso Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu kugu imtixaanayaa dhiigaasi inuu ku jiido dhiigag fara badan oo marka ku fududaato inaad dhiig cabto oo bada dhiig ajiidho oodan u aabayeelin waxaad samaynayso waxay ka dhalatay dambi aad gashay nataa'ijtiisa waa arintu waxay u baahan tahay dadka muslimiinta khaasatan ummadan aan luqadeeda ku hadlayay ee ibtilowday ee intaas sano dhiigeeda daadinaysa ee jaraa'imta galaysa xagee loo tagi doona soo Allah maxkamadiisa la tagi maayo tabaaraka wa ta'ala maxaad samayn doontaa rabbiga marka intaad hor tagto khalaa'iqdii aad ka qayb qaadatay layntooda qabiil baad ku laysay urur baad ku laysay fikir khaldan baad ku dishay rabbiga tabaaraka wa ta'ala hortiisa intay kugu dhagaan ay yiraahdaan rabbiyow waa ka kiina dilay weydii muxuu noo dilay war maxaad u dishay jawaab ma leh وما واحد جواب له هلي كرا روح مسلم ولا دلمية إلهي أكتس جواب له هلي كرا جواب ماله وحيابها دعية وواحد لغنح وانا واحد لغا مرقوده وانا واحد لغا يقصده حالده سواحي سي أدكته مركز جرائم تنوع عاصل لغو السمين يو مقع جهاد مركز لغو السمين يو مقع دين إلهي بالله نصرين يا marka lagu sameeyo kitaab ilaahay baa dhulka lala rabaa inuu xukumo marka magacaasi la isticmaalayo bay xaaladu si adag tahay maxaa yeelay dadkii diintii baa la isku diri oo jihaadkii baa magaciisa lagu ciyaaray oo muslimiintii iyo fariidada baa la isku diri oo gaaladii baa lagaga qoslin oo lagaga farxinaya kullu dalika mafaasid isa saaran weeye soo ceeb weyn ma adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalan baabiye murtadiin baan baabiye oo ummadii ku tumato إلهي بان إذن كل أريه سورة نوعية بيوتالله مساسا جهادا متاسا قال الله دقالنا متاسا وضن حرينا متاسا معوها خير وناق يقول له قدونيا أبدا أبدا سورة قبيحة حد سوغاني سان وحد دعيميه ويصوهر مرتي تاريخ ذا مركز ديب لو أخريو فكر كان منحرف كأه إن دي قو أبيالينين meel alla meeshuu arkaba dhiig cabaya daaqaya fikirka noocani saalixiinta iyo caruurta iyo dumarka iyo dadweynaha aan dan ka lahayn fikirkaasi hadana ku faanaya hadda ma aha markaad akhrido kutubta taariikhda iyo siirada Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu khaliifkii raashidka ahaa ragii islaamka qaaday ragii ugu horeeyay buu kamid ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam gabadhiisii buu qabay ilmaadeerna way ahaayeen asagoo nool buu nabigu jannada ugu bishaareeyay saabiqiintii buu kamid yahay afarta saxaabada ugu fadli badan ninba dhiigiisa xalaashaday islaamnimo iyo jihaadna ku xalaashaday ninkaasi wuxuu ka tirsanaa qolada la yiraahdo khawaarijta Ali ibn Abi Talib oo salaada u soo baxay intuu u yimid ومدح كدفت سجى نينكل علي markuu dhacay ayuu wuxuu ku yiri kudul akhri Ali oo yaala wuxuu yiri Ali xukumka Ilaahay baa iskale aduguna malihid saaxiibadana male xukumka Ilaahay baa iskale muxuu ka wadaa kitaabkii Ilaahay baad ka leexatay oo rag baad ra'yigooda qaadatay xukumka Ilaahay baa iskale annaguna waxaan ku dilaynaa diin rabbi inaan soo celino kitaab Ilaahayna dhulka ku xukun xukumka Ilaahay baa iskale adiga raggaagu malihidin caliyow markaasuu akhriyay wa min an-naasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaatillah dadka waxa kamida ruux naftiisa Ilaahay ka gaday ridihiisa isagoo raadinay
waxaan kuu dilay caliyow jannaan kugu rabaa ridaan ilaahay kaga doonaya waxaan rabaa dhiigaaga inaan janno ku galo Allahu akbar ma cali baa dhiigiisa janno lagu gali ma cali baa dhiigiisa kitaab ilaahay lagu koryeeli ma cali ibn abi talib baa dhiigiisa nusra iyo dawlad islaam lagu dhalin fikir ajiib ah markaas mid dib ka yimid oo ragga fikradda xambaarsanaa aba amaanay wuxuu leeyahay ninka duridda sameeyay ee cali duray taqi ilaahay ka baqayo aha duridda iyo dhibka uu geystayna jannu ku raadinayay ilaahayna ridu kaga helay marar badan baan xusuusan buuri ninkii nooca aha markaas waxaan leeyahay buuri ilaahay agtiisa adoomada midka ugu miisaan culus buu noqon doonaa ya kariim ma absha الصورة أدفع الحوان ومع ذلك الرقبة جنة كراساني علي بن أبي طالب دلكي سهدي جنة لقر راساني صومالي الله انتوضا إن جنة لقر راساني محاضو الله يابي مرك علي بابا جنة لقر دونتاي فكركم مرها دوق الله عضو ووجدك كبيرو هالسواي وحالد الله وحن نوع عصو كلا إن دين الله تيريا وخلط إن كتاب الله الله تيريا وخلط إن جهاد مجعيس الله سيا وخلط إن لا تاجره وخلط إن لا يبر النقدنا وواجب نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه صحابي جيس خالد بن الوليد وإنتو تأويل سمية دتسي خالد أدلي أي النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد إله بريبان كاي كمنا تشيرو كمدنا مي خالد وحو سمي بريبان كاي خالد هو اجتهاد الدلال بينك خير دوم بوها نعم ما أنت إنا تنكسارتو الدفاع دو وضوح النوع سوكلا أضوضو ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وحن نوع سوكلا اللهم أضوضو لمن الدفاع ولا قبر النقضاء حداد كبر النقوم ويدي كرق مناته وحادو قان إزاها القضو النبي يقول صلى الله عليه وسلم قفك مرك الله سميه ودولك الله سميه نينك قوبت تشوغا النعب أن دونينين wuxuu la mid yahay sidii ruux ka maqan oo kale ruuxa goobta ka maqan laakiin raali ka ah waxa dhacayana sidii isagoo goob joog ahaayoo sameeyay buu la mid yahay haddaad qaaradaha salkooda joogto oo waxa noocaas oo kale aad ku faraxsantood jihaad u haysato inay bannaanta aad u haysato adigiyo midka galayba isku dambi baatiin ka soo amrayna idin la dambi way midka sheegtayna la dambi way waxa noocaas oo kale ah wax la tabriiriyo ama tunka la saarta ma aha dhiig muslim oo tumayaal ah oo boqolaal dhaawac oo dad gubtay ah oo dad dhuxuloobay ah oo umad xataa indhahagu ayna qaban karaynina waxa noocaas oo kale ina tunka saaratood ku faanto aaway iimaanki aaway diinti aaway akhlaaqdi insaanka caadiga ah baan sheegan karay ilaahay ha laga boqo tabaaraka wa tacaala meeshaynu ku socono meel sahlan ma inxiraafku meeshuu gaadhayna meel sahlan ma aha da'yarta iyo dhalinyarada waxaan u sheegayaa xamaaska iyo niyad wanaagga iyo jannadoonnimadu yaysan cadaab idinla gelin adoo jaahila waxba garanayn mid aan ku dhaaminba markaad u tagto oo uu ku yidhaahdo khalqiga allah jannaduna waa iridda adiga janno waxaa idin dhaxaya naftu inay kaa dhacdo laa oo aad haliishood iyo cadood jannada ku orado oo ay ku timaado wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuun waxaad filanaysaa waxaan uu kugu soo baxo meelaad ka noqoto male mindi uus ku tagtay rabbi baabaad hor tagtay janna meesha taala naar baa taala xisaab baa taala khalaa'iq aad laysay baa meesha taala ma waxa ku shafeecay hebel baa yamba ma waxa wax ku daraysa ururkan ka tirsana ma waxa wax ku taraysa niyadaydu way fiicnayd ma waxa waxba ku tarimayso warkaadsada oo tartiibsada oo hays halaagina oo ummadda halaagina oo Allah ka baqa tabaaraka wa tacaala